السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنه ونكسن داود يالكو سو دواada wararka ciyaaraha ee bulsha sports qodobada hadiyana waxa kamid ah Man United ayaa doonay gool hayaa kooxda PSG Nevers Ronaldo ayaa ku biiri kara Manchester United ama PSG xilligan Atlanta waxay bartilmaameed ka dhiganaysaa Demiral Manchester City ayaa qorsheynaysa heshiiska ah Sterling intaas waxay qodobadii wararka haddana ku soo dhawaaday isagoo faahfaahsan Manchester United ayaa doonaysa gool hayaa kooxda PSG Nevers qodobka waxa eegay Muna Cismaan goolayaha Paris Saint-Germain Keylor Navas ayaa waxa xiisaanaya Manchester United sida qortay Mark Red Devils ayaa laga yaabaa inay raadiso inay keensato 34 jirkan xagaagan iyadoo ay jiraan warar ku saabsan mustaqbalka goolayaasha Manchester United sida David De Gea iyo Henderson Juventus iyo Milan ayaa sidoo kale la xiriirinaya Navas kaasoo qarka u saaran inuu waayo booskiisa kadib markii ay kooxda hamigeeda siisay goolhayaha Donnarumma kaasoo si bilaash ah ugu biiri doona kooxda kadib markii uu ka tagayo garoonka San Siro daaka ayaa doonay inuu ku biiro kooxda Liverpool qodobka waxa eegay Xasan Cumar weeraryahanka Salisbury ayaa u furan inuu u dhaqaaqo Anfield weeraryahanka Salisbury ee Badson Daka ayaa isha ku haya inuu dhaqaaqo Liverpool xagaagan sida ay qortay Football News 22 jirka waxa doonay kooxaha ka dhisan horyaalada Yurub laakiin waxa uu jeclaan lahaa inuu isku tijaabiyo Premier League gaar ahaan garoonka ay ku ciyaaraan Liverpool ee Anfield Ronaldo ayaa ku biiri kara Manchester United ama PSG xilligan ciidanka kooxda kubadda cagta Juventus Cristiano Ronaldo ayaa la soo warinaya waqti kan xaadirka inuu doonayo guud ahaanba inuu ka soo dhaqaaqo horyaalka dalka Talyaaniga maadaama dalabyo kala duwan waqti kan xaadirka ah ay ka soo gudbinayaan Manchester United iyo Paris Saint-Germain Cristiano Ronaldo ayaa markaa xusaya inuu soo gabagabeyn doono waayihiisa ciyaareed ee horyaalka dalka Talyaaniga maadaama xidigani muddo aad u fara badan ba ay raajicinayso kooxda PSG ee ka dhisan horyaalka liigoonka wadankaasi Faransiiska tan iyo xilliga uu ka tirsanaa kooxdiisa hore ee Real Madrid wiilka kan u dhashay dalkaasi Portugiiska Cristiano Ronaldo ayaa ku wargeliyay xubno kamid ah kooxda kubadda cagta Piangner Juventus isagoo sheegay inuu diyaar u yahay haddii dalab rasmi ah wada hadal ay isku afgartaan uu ka helo kooxaha kubadda cagta Manchester United ee PSG uu diyaar u yahay ka dhaqaaqista Turin Cristiano Ronaldo ayaa kooxda kubadda cagta Juve ku soo biiray 10kii July sanadii 2018 waxaana uu haystaa heshiis gaariga tan iyo 30 June ee sanadka 2022 Atlanta waxay bartilmaameed ka dhiganaysaa Demiral qodobka waxa inoo hayay Muna Cismaan kooxda Atlanta ayaa aqoonsatay daafaca dhexe ee kooxda Juventus Demiral inuu yahay bartilmaameedka suuqa kala iibsiga sida laga soo xigtay Calcio Mercato kooxda ayaa doonaysa inay xoojiso safkeeda iyadoo 23 jirkan ku darsatay safkeeda xagaagan haddii ay ku guuldareystaan inay la soo waraan Demiral Atlanta waxay diiradooda u weeci doontaa xidiga kooxda Lily Botman Manchester City ayaa qorsheynaysa heshiiska Sterling qodobka waxa inoo hayay Bibay kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa doonaysa qorshe ay ku sii hakin karaan ciiraankooda u dhashay wadankaasi Ingiriiska Raheem Sterling labadii toddobaadii ugu dambeysay ayaa Raheem Sterling waxa la xusayay in uu diyaar u yahay ka dhaqaaqista garoonka Etihad Stadium ee kooxda kubadda cagta Manchester City sida ay daawacday jirada AS ayaa markaa xusaysa inay jiraan dhowr kooxood ah ee ka dhisan tartamada qaaradda Yurub oo aad u xiiseynaya dalabka ciyaaryahankaasi Raheem Sterling ayaa kaliya laga warsugi doonaa marka ay soo dhamaadaan ciyaaraha Euro 2020 ee haatanba soconaya waqtiga kan xaadirka waxa la xusayaa in Raheem Sterling uusan ku qanacsanayn maamulka tobraha kooxda kubadda cagta Manchester City macallin Pep Guardiola laakiin aragtida Pep Guardiola ayaa ka dooranaya da'yarka waqtiga kan xaadirka u soo baxay kooxda Manchester City ee Phil Foden sidaas darteeda hadda waxay City isku dayi doontaa bal inay go'aan rasmi ay ka gaari karaan in Raheem Sterling ay ka diraan garoonka Etihad Stadium iyo in laacibkaasi lagu sii hayn karo kooxda kubadda cagta Manchester City xilli ciyaareedka soo socda Ferdinand ayaa soo dhaweynaya xiisaha Manchester United awu qabta Rice qodobka waxa eegaysa Qamar Maxamed halyeeyga kooxda Manchester United Rio Ferdinand ayaa ku farxi lahaa haddii kooxda ay la soo saxiixato ciyaaryahanka qadka dhexe ee West Ham United Declan Rice xagaagan Red Devils ayaa la xiriirinayaa inay lacag badan kula soo wareegayso xidiga West Ham kaasoo sidoo kale ay doonaysay kooxda Chelsea xilli ciyaareedkii la soo dhaafay United ayaa sidoo kale la xiriirinaya xidigaha kale ah Jadon Sancho iyo Rafael Varane dhamaadkii bishan
Real Madrid ayaa doonaysa Timo Werner qodobka waxaa eegaysa Muna Cismaan. Ancelotti ayaa diiradda u saaran inuu si lama filaan ah uga dhaqaaqo weeraryahanka Chelsea weeraryahanka Chelsea Timo Werner ayaa bartilmaameed la yaab leh u ah kooxda reer Spain ee Real Madrid. Los Blancos ayaa doonaysa inay tixgeliyaan bartilmaameedka macalinkooda cusub ee Ancelotti inta uu furan yahay suuqa xidigaha. Werner ayaa xilli ciyaareedkiisii ugu horeeyay la qaatay kooxdiisa Chelsea isagoo ku dhibaatoonaya dhinaca gool dhalinta iyo in uu ka farxiyo taageerayaasha kooxda, laakiin wuxuu ka caawiyay kooxdiisa inay kor u qaado koobka Champions League bishii May isagoo door muhiim ah ka ciyaaray wadadii ay u mareen guusha kooxda. Sida laga soo xigtay warbaahinta, Timo Werner waa bartilmaameedka dhab ah ee kooxda Real Madrid maadaama ay aaminsan yihiin inay ku heli karaan qiimo ka hooseeya kii ay Chelsea kaga soo iibsatay kooxda RB Leipzig xagaagii hore. Werner ayaa dhaliyay 12 gool, 15 kalena waa uu caawiyay 52 kulan oo u saftay kooxda xilli ciyaareedkii hore. Intaas ayaan ku soo gabagabaynay qodobadii wararka ay niyahaysay Bulsha Sports, sidaas iyo nabadgelyo.